يسيري دالكيو قاشان ديجيو أنا قاعد سارية قوليسو قولنا كل جيرو يسيرينا قاعد قولنا يدي مدبا وقلت للكاظو قولنا يا أوشي يسيرينا قاعد قولنا يدي مدبا وقلت للكاظو قولنا يا أوشي talaajo xooyanigu waan jirooyayaa talaajirhkaygiyahey ma jawaabi karo gumaysibaay haystoho ciddayga hantiyey intuu halyey dilay intuhu abbanaga daldaalay intuu halyey dilay intuhu hooyanaga kufsaday adduun weynaha aan ogahey baanu sheegayaa inay xarbiyeen inay xoog ku soo riteen saadaasha joogtiyo sideehay tahay baad ka garan gumaysiga guuray iyo guulaad ku garan hay hobalaay haddaba dumarka jowxo oo midbahaan idin farahayaa taniyo maamulki iyo mas-uulkaanu sheeghayaa taniyo kooxdii iyo gabdhaha ayaanu sheeghayaa kitaab jaamaca aan maroon baalka wada jaree hadduu hooyada adhashiyo habaha macaan xamaasad baasi iyo hadduu hadalku haramo inaynan dhegaysan behey ballanteenu tahay hay hobalaay haddaba hadday kumaya aaldileen geesiyaal degeen hadday hooyadii iyo hablaha weeru wada xidheen agoontay dhaleen hadday daran yeysan tahay waxay sugayaan waxay saamir ugu jiraan sowciidda hooyi iyo maaha caalanka la dhacay sowciidda hooyi iyo maaha ciidamada halgaami hay hobalaay haddaba kunkii degay iyo kuwii jidda horay u galay waxay dhimbiili iyo rasaas beerka ugu dhigeen waxay dhufeesyada dhammaan dhulka ugu jiraan inay ku shiidayaan shaki kuma jirteen waajibaadka dagaal iyo sida ay u gudan lahaayeen howlaha milatari ee horyaalla ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadenya oo ah xoogga dalka Ogaadenya ee ay ku dhaataan shacabka Ogaadenya waa mid ka maqooniyay cadawga gumaysiga Itoobiya ee doolka ku jooga ciidanna hooyo daawadayaal sida aad aragtaan ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadenya waa ciidan leh dishibiliin iyo nidaam milatari oo aad iyo aad u heersareeya waana mid keentay in ay kaga guuleystaan goobaha dagaalka ciidamada gumaysiga Itoobiya waa ciidan ku dhex nool oo marnaba aan ka dhex bixin kuna dhex milan guud ahaan bulshada reer Ogaadenya taasina waa kalsoonida ay bulshadu u qabaan ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya shacabka reer Ogaadenya meel joogaba waxa uu la garab taagan yahay hiil iyo hoo geesiyaasha xoogga dalka Ogaadenya oo iyagu ah kuwa muquuniyay cadawga gumaysiga Itoobiya badayna hoog iyo hiirtaanyo aanay ka soo waqsan doonin waxay u darban yihiin
oo haatan ay qaadanayaan waajibaad dagaal si ay u fuliyaan rabitaanka shacabka reer Ogaadeniya oo ah xaqiiqdii mid ku wajahan helitaanka xornimo buuxda. waxaa halkaa aad ka aragtaan ciidanka oo gacmaha u ruxaya mid walba in uu naftiisa u huro in uu gaadho hadafka uu leeyahay. taasina waa midda ay duurka u galeen ee ay heeganka ugu jiraan 24 saac iyadoo oo aanay jirin cid ugu tahniyadaynaysa ama diyaarba u ah in ay dhaqaale ku siiso, balse ay tahay oo kaliya waxa ay u darban yihiin ama ay u socdaan ilaahi oo ay ku xoreynayaan dalkooda iyo dadkooda uu daashaday gumaysiga madow ee Abyssinia. hadda waxaa hortiina imaanaya horin ka tirsan ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. run ahaantii ciidankani waa geesiyaasha baday gumaysiga, jabka iyo halaaga aanu ka soo waaqsan doonin, taasi oo ku kaliftay ciidanka aanay kor uga soo bixi karin, iyada oo askari walba uu naftiisa uga baqayo in ay mar uun gacanta ku dhigaan geesiyaasha jawxo ee iyagu gama u diiday. haddaba ciidamada qalabka sida ee jawxo waa kuwa hortiina ka muuqda, iyada oo ay wejiyadooda ka muuqato farxad iyo weliba ku qanacsanaan hawsha adag ee ay u ballan qaadeen bulshadooda in ay mar uun tusaan iyaga oo gaadhay xornimadii kama dambaystahay. macdan dunidu ay jeceshahay oo ciidayada jiifta kaliilkaana siiyay oo nimcaan suluqsanaynaaye. rag baa u shiidayoo ciidda horay u galay, rag baa gaadhka welihayoo goobihii fadhiya, rag baan baa go'odayoo baylka furi karayn. obalaay haddaba tallaay jidhka egiyohoo waan jidhooyhayaa, kuwa aabbaho ood la dilay hooyadood la dabay, kuwa gaygo odahiyo gurigood la gubay, kuwa silig la gudayohoo daldal loogu daray, kuwa la bireeyayohoo gowrac loogu daray, kuwa la jugeeyayohoo jirdil loogu daray, kuwa jelka lagu ridoon ka jawaabi karin. oona liftaad maqashay baan ku macnayn hayaa, oona liftaad maqashay baan ku macnayn hayaa, bambada olole ay sabeherkay ku wada sitaan, bambada olole ay sabeherkay ku wada sitaan, alla hadayste ee difaaca adag bay galaan. waa calanka jawxo oon xornimo kula cawaaye, caafimaad markaasaan heliyoon caata baxayaaye, cuqdadiyo markaasay dayn cirkanan qabaaye. carligii goday maalintuu cadowgu idhaafo, ciiddii wardheer iyo markaan caada daawadaba, keenta racaynteeda galo calanka oo taagan, dhagax buur markii cirifyadiyo aan xamira suuqa, cobol iyo haraarsaba markaan ciidamada geeyo, anuun ka cabsanayn siiq markaan sheekhya kula ciido, caafimaad markaasaan heliyoon caata baxayaaye, cuqdadiyo markaasay dayn cirkanan qabaaye. saraakiisha ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa waxa ay ciidanka farayaan mid walba awaamiir iyo sidii uu ugu soo gudbin lahaa sidii ay bulshada reer Ogaadeniya ula noolaan lahaayeen uguna dhaqnaan lahaayeen si waafaqsan ay u dejisay nidaamka. haddaba waxaad aragtaan ciidamadii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee ay saraakiishu siinayeen awaamiirta iyo qorshayaasha dagaal oo haatan u baxay howlgal military si ay u fuliyaan qorshayaasha saraakiisha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ay u dejiyeen ee ku salaysan xoreynta iyo ka kicinta cadawga gumaysiga ah ee Itoobiya ciida Ogaadeniya. run ahaantii shacabka reer Ogaadeniya waa ay soo dhaweeyaan waana ay bogaadiyaan markaste oo ay arkaan ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya. ciidankan aad arkaysaan waxa ay u socdaan howlgal military kaasi oo ay ka fulin doonaan goobaha ay ku jiraan ciidamada gumaysiga Itoobiya. taasi waa midda kaliya ee ay mar walba diyaarka u yihiin
ciidanka xoreynta Ogaadeniya oo ah xooga kaliya ee maanta u dhaqdhaqaaqa ummadda Ogaadeniya waa kan ay ku kalsoon yihiin ee ay mar walba la garab taagan yihiin hiilka iyo hooga ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxa uu leeyahay qaybo kala gedisan idinka oo arki doona qaybaha kala gedisan ee ay ciidanku leeyihiin waxaad arkaysaa qaybo isugu jira iyaga oo baraarujinaya shacabka reer Ogaadeniya